golaha ammaanka ee ururka midowga Afrika ayaa kulan degdeg ah ku yeeshay magaalada Addis Ababa kadib markii ay Washington ku dhawaaqday inay gab ahaanba joojin doonto kaalmada dhaqaale ay ku bixin jirtay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyadoo arrinta u sababaysay horumar la'aan ka timid dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya oo muddo ku dhow 20 sanadood imika la dagaalamaysa kooxda shabaabka balse ay sheegtay inay wala haystaan qaybo badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. howlgalka loo yaqaano African Union Support and Stabilization Mission ama AUSOM ayaa imika lagu sheegaa mid lagu taageero ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana howlgalka dalal kala duwan ku biiriyaan ilaa 12,000 oo askari balse warqad ay kowdii Luulyo ku beegtay Washington oo ay u dirtay midowga Afrika ayaa waxay ku xaqiijisay inay joojin doonto lacag ay ku bixiso xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Muqdisho ee loo yaqaan UNSOS ama US Support Office oo isna wax badan oo heel iyo hooba ah ku biiriya howlgalka AUSOM iyadoo hakinta maaliyadaasi ku beegtay dabayaaqada sanadkan oo imika 6 bilood oo qori ka harsan yihiin jiritaanka warqadan ayaana waxa xaqiijiyay diblomaasi sare oo Afrikaan ah oo go'aankan ku tilmaamay mid aan laga laaban karin howlgalkana ku sheegay mid ay u dhamaatay sida darteed ayuu komishinka midowga Afrika oo shalay toole isku yeeray kulan degdeg ah oo la iclaamiyay maalintii Doraato sida ku cad dukumeenti ay aragtay wakaaladda wararka AFP sahanada qaramada midoobay la'aanteed taas oo Mareykanka ku maalgeliyo waa inaanu khad cas u dhignaa howlgalkeena Soomaaliya ayuu diblomaasigan u sheegay AFP kaasoo magaciisa qariyay maadaama aanu ruqsad u haysanin inuu warbaahinta la hadlo walow aan wali mowqifka madambeyn laga soo saarin kulankaane tan kasii dara warqadan uu Mareykanku ku soo beegay kowda Luulyo waxay tahay inuu dhanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay xitaa kala dagaalami doono inta taageero dhinacyo kale laga siiyo howlgalka AUSOM kaasoo u baahan in markasta la soo marsiiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee UNSC taasoo noqonaysa dagaal toos ah oo Mareykanku kula jiro howlgalka ka socda dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa ku dhawaad $2 bilyan oo dollar ku bixiyay howlgalkan ka socda Soomaaliya tan iyo 2017 isagoo sidoo kale 1.6 bilyan oo dollar oo kalena ku bixiyay ciidanka midowga Afrika laftooda iyo sidoo kale 100 milyan oo lagu kharash gareeyay ciidanka ammaanka Soomaaliya oo ay dheertahay balaayin kale oo Soomaaliya loo siiyay howlo aadminimo iyo taageero dhinaca horumarinta ah ayaa warqadda lagu yiri. The United States has contributed nearly $1.6 billion to support troop-contributing countries for AMISOM and its successor missions. This is in addition to nearly $2 billion we have provided in assessed contributions to UNSOS and its predecessor. We have also provided substantial bilateral assistance, including hundreds of millions of dollars of support to the Somali security forces, plus billions in humanitarian relief and development assistance. Despite the sacrifices of the troops and police and the long-term support from the United States and other partners and allies, sustained progress against the terrorism threat in the region and towards the essential transfer of most security functions to Somalia. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mendy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada ducooyinka sanad guurada shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah meesha ay ku taalo shaashada ka milicso warqadda ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay inay ku fashilantay in horumar la taaban karo ka gaarto kooxda shabaabka in iyadoo la wareegto hab howleedka ammaankeeda isla markaana ay amba qaado dub habeen dhab ah oo lagu sameeyo ammaanka dalka Soomaaliya. UNSOS ayaa isagu lacagtan uu ka helo Mareykanka waxa uu ku sameyn jiray howlo badan oo lafdhabar u ah howlgalka midowga Afrika sida inuu ka caawiyo gaadiidka cirka, injineeriyada, adeegyada caafimaad iyo agab kale oo asaasi u ah howlgalka midowga Afrika. Isku soo wada xooriyo tilaabadan uu Mareykanku qaaday ay dadka umurahan u dhuun daloola waxa ay marka laga soo tago siyaasadda hujuumiga ah ee uu Donald Trump garwadeen ka yahay ee lagu wajahayo dalal Afrika ka tirsan oo Soomaaliya ugu horeyso laguna daro horsocod la'aanta kale ee dhinaca ammaanka oo ay laftoodu sheegaan oo loo haatan Muqdisho la nabadeeyay aanu dalku misna lahayn isku xir guud iyo siyaasad israacsan oo heer qaran ah oo marka qaarkood ay u muuqato in la iibinayo fan hadal ah in Soomaaliya ay tahay Muqdisho oo qura oo sidoo kale gacan weyn ku leh siyaasadda cakiran ee Soomaaliya oo haatan xilka fadhiso dawlad mudaxalaad dhaaftay isla markaan aan wali ogolaanin in dalka laga agaasimo doorasho la isku waafaqsan yahay oo wadar ogol ah. Mareykanka iyo maamulkiisa haatan oo aan akhyaarnimo badan lagu ogeyn laftiisa ayaa xitaa isku dayay inuu 2 jeer dhaxaadiyo madaxda dowladda federaalka iyo mucaaradka balse waxa markasta lagu adkeysanaya mawaaqif meel dhow wax ka eegaysa oo kala tagsan oo laakiin ka turjumaynin maslaxada guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. arrintan ayaa soo baahan in loo wajaho si maangal ah si wax laga bedelo go'aankane. La ciyaar hadii aan ognaan laacibka Joker-ka Cristiano Ronaldo ayaa mar kale gacan ka geystay guusha xulkiisa Portugal oo 2-1 uga saacid caleeyay dalka Croatia si ugu soo gudbaan wareegga 16 ee koobka adduunka 2026.
yaalkadu waxay dooda ka taagan tahay in CR7 uu ku dhawaaqay magaca bismillaah ka hor intaan rigooraha ganin daqiiqadii 86aad ee galinkii labaad ee ciyaarta. yaalka taageerayaasha Portugiiska ah ayaa la yimid dood cusub oo ku saabsan in Ronaldo ka hor intaan kubadda ku ganin goolhaye Livakovic aanu dhihin bismillaah balse uu yiri ereyga Portugiiska ah ee fesh markar oo la macno ah gool baa dhalin doona. balse sida uu qabo warqaadka Sport Media Set ee Talaana ka soo baxa xitaa haddii uu bismillaah yiri kama dhigna in uu qaatay diinta Islaamka oo ay tusaale u soo qaateen in ninkan 5 jeer ku guuleystay Ballon d'Or uu si weyn u ixtiraamo sida yiraahdeen dhaqanka Carabta tan iyo markii uu 2023 ku biiray kooxda Al Nassr ee ka ciyaartay horyaalka dalkaasi Sacuudiga. dhanka kale Masar ayaa markii ugu horeysay taariikhdeeda soo tiigsatay wareegga 16 ee koobka adduunka kadib markii 4-2 rigoorayaal uga badisay Australia kulan ka dhacay Arlington gobolka Texas ee dalkaasi Mareykanka. waana markii ugu horeysay oo ay heerka gaarto Masar oo 4 jeer koobka adduunka ka qayb gashay halka Australia ay markii saddexaad ku hartay wareegga bugbaxda. Masar ayaa wada dhalisay dhammaanba 4 rigoore ee ay ganeen walow Mohamed Salah uu ku sigtay in kubadiisa laga qabto kadib markii uu holiyay hanaanka loo yaqaano Panenka. Maxamed Xaaji, Hadal Sami TV.